السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا دكتور يوسف. waxaan rabaa inaan fiidiyowan kaga hadlo arrin aad iyo aad muhiim u ah taas oo ah fiitamiinka cadceedda ama fiitamiin D. sidaynu ognahay fiitamiinka cadceeddu wuxuu aad iyo aad ugu muhiim ugu yahay jidhkeena. qof kasta oo da'da dhexe ama da'da weyni wuxuu u baahan yahay fiitamiin D-ga inuu qaato maalin kasta inuu supplement ahaan u qaato ayuu u baahan yahay. wuxuuna u baahan yahay 20 ilaa 25 micrograms ayuu u baahan yahay maalin kasta, ama taasoo u dhiganta 1000 international unit ahaanka loo xisaabiyo. marka qof kasta oo aad wuxuu u baahan yahay fiitamiinka cadceedda. waxaa laga yaabaa haddii aad tahay qof da'diisu aad u weyn tahay, ama qof xanuuno la nool, ama qof u nugul in xanuunada ku dhacaan, inaad u baahan tahay doos intaa ka sii badan ayaa laga yaabaa inaad u baahan tahay. ama haddii aad tahay qof aad u cayilan oo miisaankiisu aad iyo aad u weyn yahay, asna waxaa laga yaabaa inaad u baahan tahay doos intaa ka sii fara badan, intaa in ka badan aad u baahan tahay maalin kasta. markaa fiitamiinkan cadceedda horena waan uga hadlay, aad iyo aadna muhiim buu u yahay. sidaa ogtiin fiitamiinka cadceeddu aad iyo aad ayuu u jaban yahay, qiimihiisu aad buu hooseeya, qof kastaana wuu awoodaa. marka daawade haddii aad ku nooshahay waddan aanad cadceedda helin inta badan, waxaan kugula talin lahaa ay aadna muhiim u tahay inaad maalin kasta qaadato fiitamiinka cadceedda. haddii aad Soomaaliya xataa ku nooshahay aad maalin kasta hesho cadceedda, aad qof da'da dhexe ah ama da'daadu aad u sarreyso oo ilaa 50 ay da'daadu tahay, waxaana muhiim isagana ah inaad fiitamiinka cadceedda, xataa haddii aad dhowr iyo 40 tahay, waxaa muhiim inaad fiitamiinka cadceedda qaadato. waxaana aad iyo aad muhiim ugu tahay inuu fiitamiinka cadceeddu ay qaataan dadka xanuunada la nool, miisaankoodu sarreeyo, ama dadka had iyo jeer ka shaqeeya bahda caafimaadka, siiba kuwa la kulmaya dadka xanuunada infectionka oo kale, koronaha oo kale, COVID-19 oo kale, bahda caafimaadka ee frontliners oo kale, ayagana waxay aad iyo aad muhiim u ah in ay qaataan fiitamiinka cadceedda, taas oo ka saacidaysa in uu hoos u dhaco jaaniskii uu kugu dhici lahaa COVID-19. xilligan lagu jiro xaaladan koronuhu jiro, waxaa aad iyo aad muhiim ah in aad qaadato fiitamiinka cadceedda. markaa daawade ka faa'iidayso inaad qaadato fiitamiinka cadceedda ama fiitamiin D. haddaba su-aasha isweydiinta leh, muxuu muhiim inoogu yahay fiitamiinka cadceeddu? fiitamiinka cadceeddu wuxuu muhiim inoogu yahay, wuxuu kaa saacidayaa in uu difaacii jidhkaaga uu si fiican u shaqeeyo. marka difaacii jidhkaaga uu si fiican u shaqeeyo, wuxuu kaa saacidayaa inuu infectionkii iyo viruskii iyo bakteeriyadii waxyaabahaas oo dhan uu la dagaalamo, jidhkii uu iska difaaco. haddii xataa uu kugu dhaco uu si fiican iskaga difaaco. waxa kale uu kaa caawinaya ama uu kaa saacidayaa fiitamiinka cadceeddu inay muruqyada jidhkaagu ay awood yeeshaan, oo aanad dad badan baa waxay ka caawdaan muruqyo xanuun, hadee jeer waxay ugu caawdaan muruq xanuun. marka waxaa muhiim ah inaad qaadato fiitamiinka. haddaad muruq xanuun leedahay, inaad fiitamiinka cadceedda qaadato aad iyo aad muhiim u tahay. haddii uu fiitamiinkaagu hooseeyo, fiitamiinka cadceedda uu hooseeyo, waxaad u nugushahay inuu kugu dhaco problem ama dhibaato wadnaha ah, qaybta dhuunmareynta infekshanno oo kale uu kugu dhacaan, inuu depression kugu dhaco oo kale, ama qofkii maskaxiya ahaan oo kale uu xanuunsado, inuu kansar kugu dhaco, waxyaabo aad u fara badan kugu dhici kara haddii uu hooseeyo fiitamiinka cadceedda. haddii uu fiitamiinkaagu cadceedda uu hooseeyo, waxaad u nugushahay 75% waxaad u nugushahay inuu kugu dhaco depression. waxyaabaha kale ee la xidhiidha dhuunmareynta iyo infectionka, haddii aad qaadato fiitamiin kugu filan oo supplement ahaana, 25% ayay kaa saacidaysaa inuu kugu dhaco infectionnada ku dhaca dhuunta ku dhaca. marka fiitamiinka aad iyo aad buu muhiim u yahay, daawada ka faa'iidayso. haddii aad qaadato fiitamiin kugu filan oo cadceedda ah, wuxuu kaa saacidayaa xanuunada lagu jiro xilligan ee COVID-19 oo kale. wuxuu kaloo kaa saacidaya inuu jidhkaagu la dagaalamo infectionka kugu dhici kara, oo wuxuuna saacidayaa qaybtii la dagaalanka jidhkaaga inay si fiican iskaga difaacdo. marka fiidiyogan waa intaasaan kusoo koobayaa. muhiimadduna waxaa weeye in uu fiitamiinka cadceedda aan idiin soo gudbiyo muhiimka uu leeyahay, waayo dad badan ayaan isticmaalin oo iska dhayalsada. marka daawade waxaa aad muhiim u ah
in aad jirkaaga ka warhayso. marka intaas fiidiyogan intaas ayaan kusoo koobaya. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waano iyo kulitan dambe.